السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني waa channelkeeni Guarantee saan hore idin kula wadaagay aan hore idin ku sheegay waxaan markasta idin la wadaagi doonaa waxaan isleeyahay waa idin anfaci doonaa. Maanta waxaan jeclaysay inaan idin la wadaago topigaas oo ah hard disk. Hard disk maxaa tahay? sideed u ogaan kartaa computerkaaga hard disk inta xajmiga uu leeyahay computerkaaga ku jira. San ogsoonahay mar haddaad computer isticmaalayso waa inaad walxaha aad kala garataa computerka maadaama aad soo iibsan karto ama aad isticmaali karto wax uu ka noqon karo. Sidaa awgeed hard disk waa walxaha ugu muhiimsan ee computerka lagu xusho. Marka waa inaan ogaanaa hard disk inagu jira computerkayga ama haddaad iibsanayso mustaqbalada soo dhow aad ku xulataa hard diskaaga computerka iibsanaysan u jeedaa. Sida awgeed waxaan doonayaa inaan isla eegno intaanan eegin hard disk ka nagu jira tiradiisa. Waxaan doonayaa inaan isla eegno hard disk laftigiisa muxuu yahay si physically caadi ah oo as a hardware ahaan aan u aragno. Hard disk maxaa tahay? Hard disku waxa weeye waa goobta lagu keydiyo macluumaadka computerkaaga dhex yaala. Maadaama uu yahay goobta wax lagu keydiyo waxaad ku keydsan kartaa waxyaabo kala duwan. Anugu kuma cayimayo laakiin wax kastoo keyd geli kara waad garan kartaa qofka qaangaar tahay. Marka waxyaabaha keydka geli kara sawiraanta faylasha kala duwan xogaha ku gaarka wax kasta way noqon karaan iyo programyada kala duwan. Hard diskan ku sheegayaana sidana uu eegyahay waad arkaysaa kiyo xagga sare ka furan iyo kiyo dadanba waa labadaas aad arkayso laakiin waa isku mid waa isagiyo marna furan yahay marna uu xidhan yahay. Dhismaha guud ee hard diska iyo walxaha uu ka kooban yahay guud ahaan wuxuu sawirkan aad arkaysaa fikirkan ku soo koobay lix number oo mid kasta shaqo gaar ah u qabanayo. laakiin haddaan damacno inaan lixdan aan ka wada hadalno waqti badan ayuu naga qaadanaya. waa topic aad iyo aad u ballaaran walow dadka qaar ay buugaa ka qori karaanba. marka waxaan qaadan doonaa topiga koobaad. topiga koobaad wuxuu ka kooban yahay waa hal article oo kaliyaata. topiga koobaad planets saad arkayso sawir ahaan waan inoo soo qaaday si aan u fahanno waayo halkan haddaad ka aragto number 1 planets wuxuu ka kooban yahay wareegaas aad arkaysaa CD roomka aad moodo. sida awgeed iyada planetskaas ayaan sii baran doonaa wuxuu qabto iyo siduu eegyahayba. hard disku saan ogsoonahay waa goobta wax lagu keydiyo ayaan isla garanay. sida awgeed hard disku wuxuu wax ku keydiyaa saxamadaas oo wareegsan oo muuqaal ahaan u eg CD roomkii beriga hore la isticmaali jiray. saxamadaas waxaa lagu yeedhaa planets waxaanay ka siman yihiin ama ay ka samaysan yihiin aan iraahday bir adag. birtaas oo aan qalloocsan karayn oo aluminium iyo walxa badan oo kale laga sameeyay. sida magaca hard disk loo bixiyay ama loo turjumo haddaan idinku sheego waxa lagu keenay Allahumma salli ala saxanka adag ayaa lagu turjumi karaa maadaama uu yahay magaranaysa planets. Sizeska haddaan waxa idinka sheego hard diska computer ahaan waxa geli kara 3.5 inch halka laptopka uu ku jiro 2.5 inch. goortii la aasaasay ugu horeysay waa 1956 September. shirkadda aasaastay waxa weeyaan IBM oo loo soo gaabiyay International Business Market. intaas waxaan kaga tagnay ama aan kaga soo gudubnay overview yar oo aan idinka siiyay Allahumma salli ala Muhammad hard diska iyo wuxuu qabto. laakiin imka waxa inoo harsan goobtii ugu muhiimsanayd oo ah sad ula socon lahayd ama waxa ugu ogaan lahayd computerkaaga hard diska tirada uu yahay ka kugu jira aan iraahday. si aad u ogaato waxaad tagi doontaa start menu bartaas tagi doontaa start ay ku qoran tahay right click baad siin doontaa mouse-kaaga ama haddaad isticmaalayso caadi computerkaaga waxaad tagi doontaa disk management xagga ay ku qoran tahay. disk management marka tagto waxa ku soo furmay
boxka yar aad arkayso ee disk management xagga sare ka qoran tahay. halkan aad arkayso 931 waa tirada hard diskaga. aniga tiradeedu waa 1 terabyte oo kun ah, laakiin 931 ayuu systemku i akhriyay, inta kalena drive iyo waxbuu ku maqan yahay. waad arkaysaa sida waxaan siiyay 487 halka diidu ay tahay 218 iduna ay tahay 224. marka waa partitionadii kuwani. dadka qaar baa taga my computer oo markay tagaan my computer sida right click sii taabtaa, markii right click sii taabtaan properties bay sii tagaan, waxay moodayaan hard diskooda in xaggan laga eego, laakiin kani waa drive-ka partitionka soo siisay adigu automatically aad ka soo siisay markaad Windows-ka aad ku shubanaysay. marka sida awgeed qaybta koobaad saasaad ku ogaanaysaa hard diskaga. qayb kale ayaa jirta isla sida ayaa tagaysaa, isla waxaad tagaysaa my computer baad tagaysaa, right click ayaa taabanaysaa, right click markaad taabato manage baad sii dooranaysaa. manage markaad doorato cabaar ayaad sugi doontaa, boxkan kala kuu soo baxaya computer management la yiraahdo. markuu kuu soo baxo waxaad dooran doontaa disk management. disk management isla meeshii ayuu automatically ku geyn doonaa. markii hore aan ka tagnay start menu waad aragtaa 931 baa kuu soo baxay iyo partitionadii kala duwanaa. aad ayaan idiin salaamayaa. subscribe iyo like-ta iyo comment-ka iyo inaad u share garaysaan asxaabta kale ee u baahan xogtan inay wax ka ogaadaan, inaad la wadaagtaan ayaan jeclaan lahaa. waxyaabo kaloo badanna waan inoo soo wadaa. aad baan idinka raali gelinayaa waqtiyadan idinka maqnaa sababo badan oo hawlo badan na haystay awgeed. aad ayaan idiin salaamayaa mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.